مصطفى مارتن ما مسيحي بقى مسوى مسلم نورد ضدك سؤالها اسكو سوهاد كامت شعلا سوى نكسن قولوا ما تايو إمسا تشير تايو مقال تايو مسا مسلم تايو هي توق تايو نورد ضدك سؤالو اسكو سبوت كا ومدو ما تشعلا هو قرتي قفكو إنه سوي راح الحيتاء ويروي ناكسن مرتي لكن سوالد waa taqaanayo deemos martino geeso la taqool ka lagu jaraa su'aasha weynu kala goynayna xagana uma socotid xagana uma socotid dadka u kala cadee martin ma muslim ba mise waa masiixi markaan baa ku weydiin kara waxaan qoranayo magaal baatay ma masiixi baad ma muslim baatay ku weydiin anu markii waan kaaga jawaabaya hayi ma nin baatay ma naag baatay waxa soo dhan garanaysa hayi markaan horta waxaan doonayaa inaan ku yar dib ku yar celiyo hayi horta anu maxamed quraanka lagu daray malcaamadaydu waxa loo taas oo soo noqonayna way ugu jirtaa laakiin marka hore su'aasheeda ka jawaab su'aal lagu ma dhaliye ka daayay tayga jawaab ha iyo maya anu horta waxaan nin muslima waa gartay taas waa bal haddaad adigu muslim tahay ma tukataa goor ma kugu dambeysay salaad 20 sanadood ka hor markii kugu dambeysay tukatay 20 sano korbay soonka 20 sano laakiin mar waxa jirta qoladan ganacsatada markay miisaanka galaan maartay inaan la galo oo la sii tukado laakiin si taxanaa ma tukatay wastaba joogaan macnaha waa duruuf baa soonka weligeed ma soomin weligeed ma soomin noloshaadaba ilaahay bari ma soomin bal waxaad ka qabadsiisaa martino ma soomin waana ogtahay inuu ka mid yahay tiirka midteerka muslimiinta oo ilaahay quraankiisa ku leeyahay oo xataa uu sheegayo in soonka uu yahay wax soo jireen waxa soo la socda arkaan islaamka waa la socda si wanaagsan ku dhameystir soonka iyo sakadii waxa la socda laakiin weligaa ma soomin weligaa ma soomin salaadana maxaad tiri salaada waa tukaday goor ma kugu dambeysay salaad tukatay wallahi salaadan si sax ah u tukado istaba socota mala 20 sanadood ka hor baa iyaduna اوكي وليغا ماذا سومين لكن صلاه وضوء واتنيه سنه وليغا ما سومين adigu qof dumara oo angayaanka laakiin uusan meher ku haynin mala galmad si wanaagsan okay takale waxa jira waxyaabo fara badan oo waxa jira si lamida wali waxaanu ka hadlaynaa xaaraantii xalaashay ilaahay dadka uga digay oo yiri haddaad isticmaashaan dhibad kala kulmaysa waxa kamida maandooriya waxaan eegdowkaad waxna waa practical waxna waxa kutubta ku qoran si wanaagsan anigu sina iyo khamri iyo داعي وحنا ورد الدون كصوصة من المتر. وكوسة وذا لكن أنا محربا لكن هذا اللي القرآن بيكتها اللي كتبها كده كتها دو ستوري. وحن سؤال تركوا كم وضع دعمه. وكوسة وذا. وقف عن سنيسان وقف عن وحسة من المتر. وكوسة وذا. هكذا البودين وهذا الكون صوّد وحنا كل اسمه برضو. كتبها نلقى ليس أيه. وحين أقولنا. waxaa jira waxyaabo laga sameeyay oo dadku iyagoo looga digay waxa jira xigmad tiraado waliba ingiriisa waraay ku waxaan looga digay waa ku soo wadaayay sigaarka laga digay oo khamriga laga digay oo naagaha laga digay oo hays eegina laga digay intaana waa la wada sameeyay waa ku soo wadaaba gowdhade adna waad sameysaan ana waanu sameynaa hariya habeen waan ku dhameeyay marka wixii laga digay iyo waxa suuqa yaala isma laha waa kala saarina laakiin marka ku soo wadaa maxaa lagu diiday adiga sameeysaa waxa xanta iyo beenta iyo waxa kale ilaahay waan ku darso hore u soco ma ku dari maayo halka dhaaf maayo gabadhaadu ku daawanaysaa way ka soconayna marka macal Ismaaciil ma sha Allah waxaan dadkii subxiska iyo ku wanaagsanaa ku xilliga quraanka waliba ku heesi jiray haye waliba aayadahan aad u jeclay waliba mana quraanka si wanaagsan u akhrin jiray khamridan ku soo noqonaynaa iyo maandooriyaha وات استعماشنا الله شهر سيف وان كرتي وكجود بينا ولو I enjoyed ما استعماش ما قفبا مركو خمر عبي أما ماندوري سمي وريرو مدح حنور دحدعاي وبلاي كل عاد الموت أنا ونقول دلحيسة أنا نقول ديار الكرسي أنا نقول جناعس كوتشنا أنا نقول هواي تشوفنا أنا نقول شبان تشوفنا أيانو ده واحد كل عايزين شر عبد ذي استعمال عبد ذي استعمال كذي واحد لبنا معها وحيكون عند الدوخة مرك الله في ريا عذية قال صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلا المجاهرين يا أيها الذين آمنوا إن
إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. يعني واقيرون جري أيه marka rabadaan soo gashan dadkii waxaan dhageysan jiray wacdiga wadaadada si wanaagsan horta marka xagga qiirada weliga iyo Allaahba aniga igama maqnayn oo xagga quraanka iyo jacaylkiisa weliga way ugu jirto maxaa ku bedelay marka deeyma bedelmayba الله وإنا إليه راجعون runtii waxyaalahan iyo hadalladan aadka u xunxun ee aad arkaysaan aad maqlaysaan ninka aad arkaysaan baa yidhi ninkan wuxuu ku nool yahay dalka Mareykanka waxa uu sheegay in maalinka ay taariikhdu tahay bisha koobaad ee sanadkan cusub ee 2023 maalintiisa shanaad 7 subaxnimo uu iman doono magaalada Hargeysa khaladaad aad iyo aad u tiro badan ayuu ka galay diinteena islaamka sidoo kale wuxuu khaladaad ka galay dowladda Somaliland iyadoo ay waxaas oo dhan jiraan ayuu haddana imanaya magaalada Hargeysa haddaba waxaynu soo bandhigi doonaa inagu khaladaadka tirada badan leh uu galay ee qaarna ay diinta yihiin qaarna dadka Somaliland uu ka galay oo isku dir iyo ka hor imaanshaha dowladooda ah intaba waynu soo bandhigi doonaa insha Allah taala waxaan eegi doonaa talaabada ay dowladda Somaliland ka qaado haddii uu yimaado sida uu sheegayo